حصيبة الأسلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم وفي رواية أن خارج كسوة مري فقد أهان الله وفي رواية إذا مدح الفاسق غاضب الرب نك منافقة سيد يواسا كل هنا كفاسقة ها أماننا نك إلهي حرق يسق يليتا هبنبوننا ضربنبونيسان ربي جايين بعروني حديث كان محينوت الماء ويني كسر هذا الله إلهي سبحانه وتعالى أنت كحرا يا أنبياء يا الرسوش يا علماء يا أهل خيرك إن تشعلاته أود احترامته أود قدريسه أود وناقود كضياته حموه ذا أسترته أقيل بحسه كأقدواته ومن الدين dhibki jiray soo maqlaaya badii kale waxay ku noqon qoliyay rees cudurkoodi inta badan waxay raadiyaan mufti indhalay raadiyaan hatta haday hawshu ka halowdo way doonaa mufti indhala Sheikh Ibrahim mufti indhala buu ahaa Sheikh Al-Bas mufti indhala buu ahaa markii kan hadda jooga la dooranaya magacaabahaye khiyaanada kugu sameeyay markii Sheikh Ibrahim uu dhintay waxay waayeen nin indhala oo ree'alu sheekh ah nin indhala oo ree'alu sheekh oo mufti noqon kare waayeen markaas waxay u guureen nin dawsari ah saxab hadrami ah Sheikh Al-Baz qolay idinku oo taqana ma dibaanku ahaa arab dalada ma nasab hatta ma idaan oo qoliyaha la yeeso